السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله الصوماليين ما دمانتين وين سلام يا عمر دير عبادة وصوبنا عافيمات سريان رساقة واسعيان إلهي نوغو وذا بريا ميل كستو جوكتين وحان الله إلهي إذنك وذا حفظه هرنا وذا حفظه وقت قد جوكتين هاي نوغو وناكسن هذا وحان الله انتي نيقو عصب والله وحان ربا إناد سبسكرايب لايك شير كومنت وحا أودين إنا وليبا سبسكرايب إيا لايك intiina igu cusub calaashaan intiina igu ila joogtay horeyna walaalahay waa mahadsantihiin soo fariista liked iyo comment share waxa awoodu siiba liked hayga xastinin insha Allah biidnillah ta'ala aad iyo aad baad u mahadsantihiin in kagana mahad celinaya maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo aad iyo aad baan xanaaqsanahay maanta run ahaantii waan xanaaqsanahay waxaan ka xanaaqsanahay waxa ka jira adduunyada abuse badan baa ka jira hadda waxaa jira maxkamadda ku taala dalka Holland ee Hague waxay soo saartay qodobo ka dhan ah odayaalka gabdhaha yararka maxaan ku dhahaa gadanaya guur lama dhaho kaas way gadanayaan ma fahmaysa way gadanayaan marka waxaan idin sheegayaa qodobadii iyo siday kusoo kala baxeen macnaha sababta loo kala soo saaray macnuhu waxa waaye odayaalku sharaf bay naga mudan yihiin waa aabayaalkeen waa adeeryaalkeen waa abtiyaalkeen laakiin waxay xumaadeen markii intay ordaan gabar yar oo maskiinada oo miyiga xoolo ku dhaqanaysa reerkooda intay u tagaan inay dhahaan waxaan rabnaa gabar inaad na siisiin waxaasina wax wanaagsan maaha walaalayaal soo ma ogidin waa inaynu ka hortagnaa noocaas laanu gabdho rag la-eg oo gayaankooda haa jooga macnaha laakiin nin intaasoo ciyaala soo dhalay intaasoo awoowo soo noqday abkow soo noqday hadduu rabo wadanka ka baxay waqtigii wadanku deganaa waxbarasho loo diray haddii la rabo qurbaha kusoo dhamaaday kusoo googo-ay adduunka cadaan madow waxay doonaba soo maray mar dambe indhaha soo kala qaado u dhahay bismillah xagee baan taaganay maxaan ahay maxaan qabtay maxaan hayaa oo kusoo cararay wadankii or iga gaarsiiyey ariigeeya orod kusoo maray ee markaas wadankii yimid meel kale magaalo kama dhul bilaabay marka gabadha magaaladu adduunkay la socotaa smartphone iyo laptop iyo tablet iyo wax walbay haysataa TV iyo musalsal iyo adduunya la socotaa waxa meesha ku ba'ay oo gabdhaha lagu abuse gareeya waa gabdhaha miyiga oon ka warhaynin maxaan ku dhahaa arrimaha ka socda magaalada ninkiisuu arrimaha iyo adduunku soo maray iyo meeshuu soo jab iyo halaag u soo maray oo meel walba soo maray wuu soo ordayaa wadankiibu kusoo noqonaya suu usoo socdo wuxuu ka dhul bilaabayaa meesha la yiraahdo wadankii meeshii miyiga ahayd ee xoolaha joogeen iyo dadkii iyo macnaha dad wuxuu u tegayaa oo wada degan oo smartphone iyo internet iyo waxaas midna ka warhaynin markaasuu leeyahay dee intaasoo magaaladii oo dhan waxaan usoo maray qurbahoo dhan waxaan usoo jibaaxay magaaladii oo dhan waxaan usoo baasgareeyey naag magaalo ma doonayo waxaan rabaa gabar dhaqanka taqaano oo miyiga joogto xoolihii kasoo carfayaano ciirti kasoo carfayso caanihii kasoo carfayo subagii kasoo carfayo marka waxaa la ii sheegay inaad gabdho leedihiin waxaan doonayaa in gabar la isiiyo waa nafle caari kaasi waa midkan waxba soo yani qurbaha kusoo baaba oo kusoo weynaado oo kusoo halaagmay markaasaa la leeyahay allah waaba nin qurbaha ka yimid oo xageed ka timid wadan hebel baan ka inta soo wadan soo jiray xaggan wuxuu qaban jiray lama yaqaan ay hal gabar ma la siinaya gabadhiibu wuxuu keenayaa magaalada ilaa dadkii magaalada way ka warqabaan meeshaas aba loogu aroosinayo bool baraha ciyaalka loo mariyaa wajiga loogu dhawaaqaa loogu dhamooqaa ama dambas baaba loo geliyaa intaas waxaad moodaa intaas mara baftaa ka waran mara cad baad moodaa inta kalena waa dhuxul gacmihii waa ka dhuxul korkii kale lama oga intaasina waxaad moodaa dambas in loo geliyay ka waramahe xataa kamuu qaban oo muu dhihin gabadha makeup si fiican ha loogu mariyo
ama sideedayba ku fiican tahee yaan la iga marinin makeup. xaasidnimo. kan magaalada jooga reero iska maskiino wuxuu fiirsanayaa oo tabar yar oo aada u tabar yar, wuxuu leeyahay intuu reerkiisii iyo caruurtiisii iyo ilmuhu awowga u ahayo ilmuhu abkowga oo kulli intuu ka cararo oo tago oo wuxuu tagaa wadankii. markaasuu wuxuu dhahaa hadee wadankii qurbihii oo dhan baa aniga aan soo nacayo macal ciyaalkii iyo wixii oo dhan waxawaaye farahay ka baxeenoo waxaan go-aan ku gaarin wadankayga hooyo kusoo noqdo. waxaan idinka doonayaa gabar baa la siinayaa maskiinadahoo waxba ka warhaynin. gabadhii oo reer danyar haddana danta ku kalifaysa gabadhii laleeyahay duco ama habaar labadaas mid dooro, kas lacag baa la siinayaa mugta lacagta sawdana. gabadhii marse intay indhaha isku qabsatay leedahay dhexdoodaan taaganahay may bay leedahay mayaa laleeyahay mid dooro. marka dambe ducada iska qabsanaysa waa lagu soo darayaa. markii lagu soo daro muxuu ka faa-iidayaa, muxuu ka lugoynayaa? lama joogayso, waa la ogyahay gabar magaalo lama joogayso. xataa kuwa danyarta ee uu asagu hunguriga ka raadiyo isleeyahay ku gado lacagta ku gado, lama joogayso. waad ogtahay adna kulama joogayso saaxiib, kulama joogayso, waa lagu fahamsan yahay. marka waxaa dan ah marka nimanka Soomaaliyeed, ninku horta da-ihii iyo wixii maxkamadu soo saartay halkan baa lagu soo qoray. da-aha la ogolyahay inay xoogaa ay isku soo dhadhawaan karaan oo macquulka ay noqon kartana waa la soo qoray. laakiin waxa waaye wixii intaas ka weyn waa inay meel fariistaan, waa inay islaamaha iyo ilmaha iyo wax ka koriyaan, ilmaha awowga u yihiin wax ka koriyaan. caruurta ay hooyada markay weynaato caruurteedii dee ilma sii dhaleen waa inuu romantic iska dhaawo intuu gacmaha isqabsadaan kafeed dariska kasoo meeshaan kafeteriyada tagaan oo soo noqdaan oo iska soo leyrsadaan oo gurigooda soo socodsiiyo maamada oo guriga soo celiyo, film la wada fiirsado oo la fariisto oo la wada farxo. laakiin saacadaas hadduu u tafaxayto gabar baan soo guursanayaa Africa aan ka doonanayaa gabar Soomaaliya, saaxiib adna waad ishalaajinaysaa. wallaahi billahi kulligood intooda badan haar attack baa ku dhacay, wallaahi wabillahi watallaahi haar attack baa ku wada dhacay because waxaan tabartooda iyo naftooda ahayn bay isku qasbeen. ma fahamtay? marka waxa waaye waxaasna waa abuse-kaasna waanu ka hortegaynaa, waana ka dagaalamaynaa. gabdhaha yararkaa rag baa u jooga, dhalinyara u buuxda. wadanku wuxuu leeyahay 85% oo ah dhalinyaro. gabdhahana waa intoo kale kamid yihiin ayaga isguursanaya. dhalinyaradaas ama miyi ha ahaato ama magaalo ha ahaato, dhalinyarada wadanka miyi iyo magaalo 85% waaye. ayagaa isku filan iskana badan. oday looma baahna, ilmahooda iyo hooyooyinka oo xaasaskoodii hore la fadhiyaan. kii saaqidana masaajidka ha galo ha fariista, meelo gurigiisa ha fariisto, ilmihiisii iyo ilmuhu awowga iyaha ka warhaayo ha noqdo sidii la arki jiray. da-daas markii la gaaro raggu waa inay noqdaan nabadoono, waa inay noqdaan loo yeertaa markii arrini dhacdo, markii gabar la doonanayo la kaxaystaa, markii arrin la dejin waayo la kaxaystaa. wax walba markii masaajidka markii dan laga leeyahay la kaxaystaa. dadka hormuudka oo ku dayashada mudan inay noqdaan waayo, ma ahana inay gadaal usoo fireeyaan, ay teenage isku bedelaan, ee 40 jiro iyo 50 jiro isu bedelaan. no, idinkama yeelayni taas. waxaan idin leenahay waxaad tihiin abtiyaalkeena, adeeryaalkeena iyo walaalaheena. wixii intaas gaara macnaha waa inaad in xad ka dhaafin. marka aniga hadda waxaan idin akhrinayaa wixii ay soo qortay maxkamadda Hague. waxayna tiri macnaha horta haddaad rabto inaad soo heshaan waxaad ka dooni kartiin google-ka, way ku jirtaa. waa SNW xarfaha oo aad ka helaysiin gabdhaha iyo waqtiyada isku fiican yihiin, ragga isku fiican inay isguursadaan. intaa wixii ka dambeeyana waxaa la dhahay they have to go relax, inay relax sameeyaan waayo oo fariistaan. ma fahamtay? marka waxaa la dhahay horta xarfaha waa xarafka qodobada waxa weeyaan waa SNW. maxkamadda adduunka oo soo saartay baa la yiri waa iska fahmaysin. marka hadda waxaa idiin sheegayaa da-da ay isku ahboon oo laisku aadiyey
waxay dhahday maxkamadu waa in gabdhaha isguursanaya waa inay ahaadaan waxaan lagu sifeynayaa macnaha 18 jir ilaa 25 jir. waxay guursan kartaa ninka da-diisu u dhaxayso gabdhaha mida 18 jirka ilaa 25 jirka mida u dhaxaysa waxay guursan kartaa ninka ah 25 jir ilaa 30 jir. may maqlaysiin? waa aniga ma aha wax sheegay taas. gabadha 25 ilaa 30 jirka u dhaxaysana waxay guursan kartaa ninka u dhaxeeyo 30 ilaa 40 jira. ninka 30 ilaa 40 ninka u dhaxeeya way guursan kartaa. marka gabadhii waa 25 jir ilaa 30 jir waa major waayo xoogaa waa maasha Allah. laakiin major markaan ku leeyahay maahan inay 70 jir raacdo, no, macnaha waa qof maskaxdeedu ay soo korayso fiican tahay oo meel fiican maraysa. markaas waa inay reer leedahay oo weliba awlaad iyo ilmo haysataa haddii Ilaahay siinayo. marka 25 ilaa 30 waxay guursan kartaa ninka 30 ilaa 40 jira. way isku fiican yihiin wax saas ma kala weyna. diinteenu waa ugashay da-da sideedaba ama haweenaada mar hadda gabadha diqaan gaartay iyo wiilka diqaan gaaro waa da-da doonta ha jirto. dadka muslimka waa okay, taas lagama soo horjeedo. laakiin qaladaadkii baa batay, dhibkii baa batay. haddii odayaashii gabdhihii ka haystaan wiilashii dhalinyarada oo 85 wadanka ka ahaa yay guursanayaan. marka sorry marka waxaa la dhahay gabadha jirta 25 ilaa u dhaxaysa 30 waxay guursan kartaa 30 ilaa 40 jir. waa maasha Allah. gabadha 30 ilaa 35 jirka u dhaxaysa taasina waxay guursan kartaa ninka u dhaxeeya 35 ilaa 45. waa fahmaysiin? 10 sano mashaakil male, 8 sano 5 sano adiga dhib ma jiro, waa isku soo aadan yihiin. waa fahamtay? gabadha jirta 35 ilaa 40 gabadha jirtana waxay guursan kartaa oo ku wanaagsan inay guursato ninka 40 ilaa 50 jira. waa maasha Allah. iyadana waa heer sare because waa dad isfahmaya macnaha. waana waqtiga noloshu markaas ay ragga iyo dumarkaba ay u bilaabantay 50 jirka iyo ilaa 55 jirka. waa markii ay wax kasta ay saa u kala xaraasayaan way oo wanaagsan yihiin oo macnaha jidka wanaagsan xooggoodii iyo caqligooduna uu maajoor yahay oo meeshii loogu rabay uu ka bila meeshii xaggana uu kasoo tagay meeshii kalena uusa gaarin dhexdhexaadkii u taagan yahay. marka gabadha 40 ilaa 45 jirkaana waxay guursan kartaa ninka 45 ilaa 50 jira. gabadha 45 ilaa 50 jirta waxay guursan kartaa ninka jira 50 ilaa 60 jirka way guursan kartaa. waa fahamteen? because 60 jirku iyo 50 jir gabar ah waa isku soo aadan yihiin, waa isku soo dhow yihiin oo isfahmayaan macnaha. ragguna markaas waa ragga xooggooda weeyaan oo macnaha waa marka la leeyahay waa odayaalku waa markay muruqa kuuska yihiin oo is hagaajiyaan oo maasha Allah maskaxdoodii wax walba ay diyaar ay yihiin macnaha ay degtay. gabdhaha markaa 50 ilaa 55 jir waxay guursan kartaa 60 ilaa 65 jir way guursan kartaa. wayna isfahmayaan, waana isku nagaanayaan, waana dad khaladaad iyo waxaas midna aan iskula kacaynin. waa dad degan oo macnaha si dabiiciya u degay maskaxdooda iyo miyirkooda iyo wax meel walba ka buuxa oo degan oo isfahmaya weeyaan. laakiin intaa wixii ka dambeeya waxaan kula talinaynaa inay ka waantoobaan gabdhaha yararka ay soo gadanayaan because waa khalad. macnaha diiniyan khalad kuma ahan, laakiin mujtamac ahaan markaan Soomaali nahay waxaan nahay dadka ugu waalan orda gabar masaakiin reer baadiye jooga kasoo kaxaysta magaalo keena. gabadhaas kulama joogayso, waa is ogtahay. ninta 65 ka weynaadayow gabar kulama joogayso. mid miyir qabta haddaad magaalo keentidna waa loo waramayaa. waxaa leeyahay maxay dadka ninka la joogtid. waxay arkaysaa asaageedo baawur lagu galbinayo, waxay arkaysaa asaageedo diyaarad lagu galbinayo, waxay arkaysaa asaageedo honeymoon aadayo. waxay leedahay honeymoon maxaa la dhahaa
haye waxay arkaysaa asaageeda xaflada loo dhigayo maxaan ku dhahaa burkiyeeradii bay arkaysa wax walbay arkaysaa kulama joogayso adna ha iskhasaarin maxaan ku dhaha gabadhaasna maskiinadaana waqtigeeda ha ka dhumin waa fahamta anigu intaasaan hadda meesha usoo galay wax kale uma soo galin anigana ma aha qofka saas sameeyey marka waxaan idin leeyahay walaalahay aniga dambigayaa la isaarin waa wixii aan soo qoray oon kasoo qoray meeshii ay ku qornay marka khayr baan idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo waxaan leeyahay ha layga gaarsiiyo dabcasar shalay waxaan arkayay aan kasoo geliyay meesha asagoo leh gabdhihii wiilashii dhalinyarada ahaa gabdhihii ma dhaqanayaan markay gabadhii aysan dhaqanaynin markii nin guursado nin weyn guursado oo dhaqanayo waxaad leeyihiin waa abuse ma ahan buu yiri abuse waaye because waqtiba ma siinaysiin gabadhii markaad aragtiin wiil gabar isku soo xanaaqay ha laga soo furaad leedin hadduu la rabo reerka waxay u wacdeen odayaal sometimes dadku way wada hadlaan famil baa loo wada hadlaa markii laisku yimaado waxaa laga yaabaa inuu ku jiraba war gabadha ninka ka fura baa laleeyahay ka fura muxuu sheegaya wiil xuno bibiba markii laga furana asaa isku maroojinaya wuxuu leeyahay aniga halasii gabadhan anayba igu fiicanta yah marka waa laidin fahamsan yahay dhalinyarada wadanku waa 85%. dhalinyarada ayaa u baahan gabdhaha inay guursadaan odayaasha waqtigoodii way soo qaateen waa awooyaal waa abkooyaal waa abtiyaal waa dad waaweyn ilmahoodii iyo xaasaskoodii hore hala dhaqmaan si fiican hoola dhaqmaan saacadaas yaysan laba rogleynin maskaxda maaha inay kaa noqoto young oo 18 years oo teenage aad noqotid adoo nin weyn ah oo qalfoofkaagii nin weyn yahay oo da-daadii qof weyn ah marka maskaxdu waa inay ku degan tahay oo la rabaa meeshii la rabay inay fadhido marka haddaad 65 ka weynaatay yaa adeerayaal abtiyaalo walaalayaal haddii aad tihiin waxaan idinka codsanaynaa inaad noqotaan sidii Soomaali lagu yaqaanay oo ahaa inay noqdaan nabadoono inay noqdaan odayaasha oo arrimaha xalliya culimaa diinka dadka isu keena nabadda ka taliya wax walba laakiin hoos ha usoo noqonina hore u socdo khayr baan idin rajaynayaa waad mahadsantiin salaamu calaykum